wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdilaahi Ibrahim Habane oo weeriye gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax wasiir ku xigeenka wasaaradda warshadaha Yuusuf Karas Cismaan ayaa kulan ballaaran la yeeshay maamulayaasha dugsiyada sare oo qaatay waxgaradka gobolka Gabiley lagaga arinsanayo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyo adeegyada kale ee gobolkaasi leeyahay waxaana halkaasi qorayn baad la kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdilaahi Ibrahim Habane maruu la hadlayay maayirada degmooyinka kala duwan ee gobolkani Gabiley hoos yimaada kuna dheeraada ahmiyada ay u yimaadeen gobolkan Gabiley iyo dana ay ka fulin doonaan waxaana wasiirka hadaladiisa kamid ahaa xalay waqti dambe isku gaarnay maantana waa inay wada joognay inagu maamulkii degmooyinka iyo maayirka magaalada madaxda iyo kusimaha gudoomiyaha gobolkaba inay suuraysanay imankana duqeydii iyo qaashi baynu ka soo baxnay dhaqameedkii inta waxaynu ka hadlaynaa waxa ahayd sidee loo tayeyn karaa waxbarashada iyadoo la iskaashanayo sidaynu wax u qaban karnaa baylaxda waxna waxa ugu dhaqaalo xoogan naga xidhan waxna farsamo xumay nooga beelahayaan wixii farsamo xumay nooga beelahaya inaan iska kaashano oo aan awdno wixii dhaqaalo ku xidhanna waqtigeeda iyo goorteeda ayay la kaashanaynaa laakiin waa inaad ogaataa baylaxdaada aad baan odayaasha iyo maamulka ay degmooyin yihiin iyo hadday magaalo madaxda yihiinba xoogaalkii ayna siiyeen iyo xogtay noo dhiibeen iyo duqayduba siday ugu heelan yihiin inay ka qayb qaataan howlaha horumarinta waxbarashada aad baan ugu bogaadinaynaa waxaan ku ballannay inaan iskaashanno oo baylaxda wixii aan awdi karayno aan awdno innagoo isku ujeedda ah hadday tahay dayactirka dugsiyada hadday tahay tayeynta macallimiinta waxaasoo dhan waan iska waraysanay waa aasaaska nolosha weeyaan haddaynu halkaa xoojinno oo aqoonta kor u dhisno bulsho dhisan baynu helaynaa oo aqoon leh oo horumar gaadha barsaab ku xigeenka gobolka Gabiley maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi la kooban ka jeediyay ayaa waftigani soo dhaweeyay muddada uu joogay wasiirku halkan aan ku qabanay wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inuu waqti inta leegna siiyay oo xoogaal ugu noqonayo waxbarashada iyo hawlaheeda runtii waan isla qaadanay waxyaabo badan oo runtii gobol ahaan baahi loo qabay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo waynu ognahay oo siyaasadda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii meelaha ugu sarreeya weeye inta uu wasiirku joogay wasaaradda waxbarashada oo ay ka mid tahay manhajka waxbarashada ee runtii la bedelay waxyaabo badan baa laga qabtay halkan maanta waxaanu ku soo gunaanadana kula shaqo oo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uu joogay 3 cisho u dambeeyay gobolka Gabiley oo ku sahabsanaa xoogaal u noqoshada waxbarashada gobolka Gabiley iyo dardargelinta howlaha shaqo waxbarashada runtii aad baan ugu mahad celinaynaa wasiirka mas'uuliyiin ahaan 3 cisho ee waqtiga siiyay waxbarashadu waa meelaha aasaasiga ah ee muhiim tahay in mar walba gacanta lagu hayo saacad wasiir adiga iyo waftigaad hogaaminaysa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa oo kugu hambalyeynaa inaan nala joogto waxa kulamo la yeeshay wasiirku qaybaha kala duwan ee waxbarashada gobolka hadday tahay macallimiinta hadday tahay kormeerayaasha hadday tahay maamulayaasha iyo hadday tahay mas'uuliyiinta kala duwan wuxuu kulan la yeeshay madaxda dhaqanka ee gobolka wuxuu kulamo la yeeshay maamulada degmooyinka kala duwan wuxuu kulamo la yeeshay maamulka gobolka runtii intaaba waxa laga wada hadlayay waxbarashada gobolka halkay taagan tahay wixii dhiman iyo sidii loo soo kordhin lahaa aad iyo aad baan wasiirkaaga mahad celinaynaa wax badan baan isxogaa tusaaleynay wixii baylaha sidii iyaguna wixii wasaarad ahaan karaankooga ay u qaban karaan annaguna degmooyin ahaan iyo dawlad hoose ahaanba wixii awoodayada aan u qaban karno sidoo kale shacabku wixii ay iska kaashan karaan ee baylahda waxbarashada ay iskaga kaashan karaan aad iyo aad waa nimcaan dheeg TV qaranka Gabiley.